duhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye kuwooda ugu waaweyn duhurnimadan waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in AMISOM ay kala xisaabtami doonaan shilkii ka dhacay inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo afgooye dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo maalintii labaad ka socda duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku wajahan magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo ka mid noqday kooxda Liverpool dawladda Kenya oo shaki badan gelisay in Soomaaliya ay haysato kiis ay isku haleyn karto oo la xiriira dacwadda badda Mareykanka oo sheegay tirada askarta ee loogu dilay weerarkii ka dhacay Afghanistan iyo Sacuudiga oo cambaareen kala kulmay maxkamadaynta haweenay u dooda xuquuqdaadana madkala ku celi warbal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba duhur wanaagsan dhageystayaal mar kale meel walba aad joogtaan jimco wanaagsan waa jimco 8 bisha 6 2019 warka waxaa soo saaray cali ibraahim cabdullaahi cali suxayfa isla cali suxayfa iyo anigoo ah Faadumo Abuukar Cabdi ayaan idin la socodsiin doona markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aan ku bilowno dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa maalinkii labaad waxa uu ka soconayaa duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Usmaan Aadan Carays ayaa warkan beledweyne ka soo diray dagaalka saaga ka dhacay deegaanka Ilguula ayaa kii ugu cuslaa ee maalmihii dambe ka dhacay deegaanka ay isku haystaan labada maleeshiya beeleed ee ka soo kala jeeday Hiiraan iyo gobolka Galgaduud iska hormaadka saaga ka dhacay deegaanka Ilguula ayaa ila lagu kalsoon yahay waxa ay sheegayaan inuu jiro dhimasho iyo dhaawac fara badan haatan dagaalka uu soconayo suurtagal aysan ahayn in la helo khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka labada maleeshiya beeleed ee ku dagaalamay deegaanka u dhaxeeya gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ayaa dagaal soo jiray muddo dheer waliba aan xal laga gaarin kaas oo ka bilowda muran la xiriira dhul daaqsin iyo ceelbiyood iyo deegaan dagaalkani ayaa ku soo beegmaya maamulka Hirshabeelle ay ku mashquulsan yihiin xal welida muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya gudoomiyaha xilka laga qaaday iyo madaxweyne Maxamed Cabdiwaare kaas oo ilaa iminka aan loo helin waxa la Usmaan Aadan Carays warbaahinta kulmiye beledweyne ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan deegaano kamida maamulka Galmudug ayaa daqiiqadaha soo aadan ku wajahan magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud wafdi oo horudhac u ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada Cabudwaaq ra'iisul wasaare Kheyre ayaa lagu wadaa in uu kulamo kala duwan la yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugan magaalada Cabudwaaq isla markaana uu kala hadlo dhismaha Galmudug oo midaysan qabanqaabada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadda waxa ay ka soconaysaa magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud magaalada Cabudwaaq ayaa waxa ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabi iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo u gogol xaaraya wafdiga ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in AMISOM ay kala xisaabtami doonaan shilkii ka dhacay inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose sidaas waxa warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka taraafikada ee booliiska Soomaaliyeed Yunis Duraan Cali ayaa warkan faahfaahinaya taliska booliska Soomaaliya qaybtooda taraafikada ayaa shir ay Muqdisho ku qabteen waxay uga hadleen shilkii ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose maalintii Arbacada heediyaan soo dhaafnay shilka ayaa waxa geystay askar ka tirsan ciidamada AMISOM waxaana gaari ay wateen ciidamada uu dulmaray mooto ay saarnaayeen Allah ha u naxariistay laba askari oo ka kala tirsan ciidamada booliska Soomaaliya iyo militariga Soomaaliya iyo qof shacab ah oo mootada watay taliyaha ciidanka taraafikada ee booliska Soomaaliyeed Generaal Maxamed Xuseen Madaali ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlay shilkaasi in marka ay shilka geysteen ciidamada AMISOM ay raacdeysteen ciidamo boolis ah oo iyagana watay mooto dabana socday mootada ay jireen AMISOM kuwa oo taleefano uga hormariyay rugaha booliska ay ka joogan inta u dhaxaysa degmada Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha waxaan aniga oo ah taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka ee booliska rabaa inaan halkan kala hadlo ummadda Soomaaliyeed shil ka dhacay oo gaadiid kolonyo ah oo ay AMISOM leedahay ay ku dileen 3
marxuum oo magacyadooda la kala yidhaahdo alifle cabdishakuur bootaan cabdulle oo daraawiishta ka tirsan, cabdulqaadir xuseen cali oo guutada 2 ururka 5 horinta 5 ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, iyo mootowade Daxmar Jeylaani Abuukar Cabdi oo ku dhashay Afgooye. sidaa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayaa in baabuur Kasper ah oo ah kuwa gaashaaman ee ciidamada AMISOM uu shilkaas ka mas'uul ahaa, waxaana waday alifle wimbaale tiwaahile. shilkaas ciidanka booliisku marka uu dhacay mootadaas sidaasi qabsatay, waxaa daba joogtay mooto kale oo ay rag booliisii wataan, kuwaasoo cayriyey lana hadlay rugaha kontaroolada booliiska ee ka horeeya ee meesha loo yaqaano Lafoole iyo Afgooye. waxay sheegeen shilku inuu dhacay, waxa ay la cararayeen ay ahayd in reaction lagu sameeyo ama ruduudul ficli oo dad caraysan ay waxyeelaan. waxaa watay ciidankaas oo madax u ahaa gaashaanla sare SK Kutesa oo ah brigadeska 27aad ee ciidanka AMISOM ninka madaxda u ah. booliiskii Afgooye ka yimid, kuwii deganaa ceelasha biyaha, kulli iyo kuwii cayrsanayay waxay isugu yimaadeen taliyaha ninkii u ahaa ciidankaas wuxuu bixiyey caddayn uu gacanta ku qoray oo ka kooban 6 qodob. waxaan ogolnahay mas'uuliyadana saaran inaannu qaadanno. cararka aan cararnin ayaan loo qaadanin inaannu sharciga ka baxsanaynay, ee waxaannu diidaynay dad caraysan oo sibil ah inay yimaadaan oo annagana waxna gaaraan, iyagana ay wax gaaraan. jenaraal Madaali ayaa dhanka kale waxa uu sheegay inay hayaan xogta rasmiga ah ee sida uu shilka u dhacay, baaritaanana ay wadaan, isagoo u ballan qaaday dadka Soomaaliyeed iyo ehelkii ay ka baxeen marxuumiintaasi inay la wadaagi doonaan baaritaanada ay wadaan wixii ka soo baxa. sidoo kale taliyaha ayaa tacsi u diray ehelkii ay ka baxeen marxuumiintaasi ay jeereen gaari ay wateen askar ka tirsan AMISOM, waxaana uu ehelka dadka ay ka dhinteen ugu laab qaboojiyey in dowladda ay ka warhayso dhacdada. sidaa daraaddeed waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciidanka booliiska ee nabadgelyada wadooyinka, kuwooda Afgooye jooga iyo kuwa xamar joogaaba, ay hayaan warbixinta raboodkan iyo wixii dhacay, dacwadiina la baarayo, wixii ka soo baxana aanu la wadaagayno bulshada Soomaaliyeed. aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska, taliyaha hoggaanka nabadgelyada wadooyinka iyo kaygaba, waxaan rabaa qoysaskii ay ka baxeen iyo dadka Soomaaliyeedba inaan u dirno tacsi kal iyo laaba oo aanu leenahay samriya iimaan Allah inaga wada siiyo. waa naga wada dhinteen, waana ka xunnahay wiilal yaryar oo dhallinyaro ah in dhibaatadaas ay la kulmaan. wixii sharcigu yahay iyo waxa baaristu ku dhammaatana waxaa lagala soo xiriiri doonaa dadka ehelka u ah. waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaan u tacsiyadayno, ay sidaas u ogaadaan in aanay dowladdu hakranin, qarankuna wax ka qaban waayin arrintooda, ee aanu la soconno. ciidankani waxay ku joogaan sharci dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay, wixii ay sameeyaan ee xadgudubana waa lagala xisaabtamaya. waxa ay ka madax bannaan yihiin ma ahan sharciga Soomaaliya, waxaa lagu dabaqayaa sharciga Soomaaliya u yaal, isagayna u hoggaansami doonaan. sidaasaan rabaa inaan idiin caddeeyo. codkaasi waxa uu u dambeeyey warbixintii Yoonis Duraan cali aad ayuu noo mahadsan yahay. ciyaaryahankii ugu horeeya oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday kooxda Liverpool, waxaana muwaadinkaasi ku biiray Liverpool lagu magacaabaa Cabdishariif. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxa ay noo soo jeedinaya wariyaheena arrimaha isboortiga Maxamed Shuuriye Nuur. It will begin to look like a long shot if Abdi Sharif can make it 3-1 Liverpool here. Sharif, who improved and improved throughout the game, and now ready to make a big mark on this, which he does. 3-1 Liverpool. That's another quality penalty there from Abdi Sharif. Massive penalty for Liverpool just to give themselves a little bit more breathing space. gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu shaaciyey website-ka naadiga kubadda cagta ee Liverpool in Abdi Sharif uu ka mid noqday naadiga waaweyn ee Liverpool. Soomaaligii ugu horeeyay ee u ciyaara kooxda Liverpool ayuu noqonayaa. laacibkan qadka dhexe 18 sano jirka waxa uu kooxda ka tirsanaa ilaa markii uu 6 jirka ahaa. Abdi Sharif waa wiil Soomaaliyeed oo u ciyaara kooxda Liverpool. waxa uu kooxda la seexday heshiis heer sare oo uu kaga mid noqonaya laacibiinta ay Liverpool ku tashato. laacibkan qadka dhexe 18 sano jirka waxa uu kooxda ka tirsanaa ilaa markii uu 6 jirka ahaa. wuxuuna 3 sano ka hor bilaabay inuu kooxda u ciyaaro, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ay Liverpool soo saartay. waxa uu ciyaaruhu ku bilaabay tartanka FA ee dhalinyarada. waxa uu kulankii ugu dambeeyay dhaliyay gool kulaad ay Liverpool ku qaaday koobka. waxay ahayd markii ugu horeysay muddo 12 sano oo ay kooxda heerka gaarto.
sidee u arkaan laacibiinta Liverpool? Steven Gerrard oo kabtankii hore ee naadiga ah waxa uu toddobaadkii hore sheegay in qaab dhismeedka Cabdi uu u dhigmo ciyaartoyda waaweyn, wuxuuna Gerrard intaasi raaciyay Cabdi inuu orodka aad ugu wanaagsan yahay lugana dhaadheer yahay waxa uu ka dhex muuqday kooxdiisa iyo ciyaartoyda keedka. sidaa darteed waxaynu isku dayaynaa in Cabdi aynu ku boorino sidii u noqon lahaa mid ciyaaraha kooxda waaweyn ka qayb qaata. 100% waan ku raacsanahay Shariif oo 17 sano jira inuu tababar dhawaan uu ku qaatay akademiyada kooxda si uu qayb uga noqdo naadiga Liverpool. bilow aad u wanaagsan ayaan ku bilowday xilli ciyaareedkan, laakiin ciyaartoy kasta waxa uu leeyahay xirfad ciyaareed oo u gaar ah. aniguna waxaan wadaa dadaal intii awoodeyda ah. Stephen iyo tababaruhuba wax badan ayay igu dhiirigeliyeen ciyaartoy ahaan aad ayaan ugu baahanahay aniga ahaan si aan xirfadeeda ciyaareed ay sare u noqoto. ciyaaraha heerkii loo baahnaana aan u gaaro waa inaan dadaalaa. dhiirigelinta noocaasi waan u baahanahay. Stephen wuxuu mar walba igala shaqeeyaa sidii aan xirfadeeda goor walba ku horumarin lahaa. Cabdi Shariif waxa uu ku dhashay Soomaaliya, waxa uu kusoo barbaaray Tokth. Shariif waxa uu ciyaaraha kubadda cagta bilaabay markii ay qoyskiisu ka hayaameen Soomaaliya, UK-na ay gaareen isagoo 3 sano jir ah. wuxuuna waqtigiisa caruurnimada uu la soo qaatay bulshooyinka St Margaret iyo dugsigii hoose ee Lawrence. inta badan xilliyada uu fasax yahay isaga iyo walaalkii oo 9 jira waxa ay wada ciyaari jireen kubadda cagta. taageerayaal badan ayaan lahayn aniga iyo walaalkay. markaan kubadda wada ciyaari jirnay waxaan ahaa qof adag, guuldarada ama in la iga raayo ma jecleen, ayuu yiri ciyaartoygan da'da yar ee Shariif. markii ay da'diisu 6 jir gaartay, Shariif waxa uu nasiib u helay in tababar uu ka qayb qaato oo kooxda Liverpool ah, wuxuuna markaasi toos ugu biiray akademiyada kooxda kubadda cagta ee Reds. mar walba waxaan u fiirsadaa Cabdi Shariif, markasta uu ciyaarayo si gaar ah ayaan u daawadaa ciyaaraha uu soo bandhigo, xeeladihiisa, xirfadiisa, dabeecadihiisa, sida ay uga go'an tahay inuu kooxda kusoo biro. Shariif wax waliba oo looga baahnaa ciyaartoy ayuu leeyahay, gaar ahaan xirfadda ay kooxdan Liverpool u baahneed waa uu leeyahay, ayaa lagu yiri qoraal kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Shariif waxa marar badan loo xil saaray inuu kooxda dhalinyarada ee Liverpool uga ciyaaro difaaca dambe iyo dhanka midig, balse Cabdi waxa uu aaminsan yahay mustaqbalkiisa fog inuu ka ciyaaro qadka dhexe. marka hore qadka dhexe inaan ka ciyaaro ayaan ciyaaraha u soo galay, laakiin markii dambe waa la iga wareejiyay, ayuu yiri. qadka dhexe inaan ka ciyaaro ayaan anigu jeclahay, waa haddii ay kooxdu ku qanacdo sida aan u ciyaarayo, anigusa mar walba diyaar ayaan u ahay inaan qadka dhexe ka ciyaaro, ayuu hadalkiisa ku sii daray. markii aad caruur tahay iyo marka aad soo weynaatidba waxa aad mar walba ku taamaysaa waxa ay tahay inaad kooxda Liverpool markaasi dhalinyaradeeda ka baxdid, waaweynkeedana aad ka mid noqotid. waxa ugu wanaagsan ee aan haminayna waa taas, ayuu Shariif hadalkiisa ku soo afmiray. bulshada Soomaaliyeed ayuu wacaal farxadeed u noqday hadalka ciyaartoygan iyo saxiixa kooxda Liverpool ay si rasmiya ula sameysay markii ugu horeysay xirfadiisa ciyaareed laacibka Cabdi Shariif. wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Marwaqdiije Maxamed Diiriye ayaa boggeeda Facebook ku tiri guusha uu gaaray 18 sano jirkan qadka dhexe waa mid u soo hoyatay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow ayaa qoraal dhiirigelina uu soo dhigay isna boggiisa Facebook. wuxuu ku ammaanay horumarka uu higsanaya Cabdi Shariif kadib la wareegista kooxda Liverpool ayaa kaalinta labaad ka gashay kala sareynta horyaalka wadanka Ingiriiska xilli ciyaareedkii hore. Manchester City ayaana koowaad ku soo baxday. Liverpool waxa ay ku guuleystay 2018-2019 olaha koobka Champions League oo Tottenham ay kaga qaaday magaalada Madrid ee caasimadda wadanka Spain. It will begin to look like a long shot if Abdi Sharif can make it 3-1 Liverpool here. Sharif, who improved and improved. dowladda Kenya ayaa shaki badan gelisay in Soomaaliya ay haysato kiis ay isku haleyn karto oo la xiriira dacwadda badda. sidaasi waxaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Choma. Maslax Abukar Xaaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray. Monica Juma oo ah wasiirka arrimaha dibadda dalkani Kenya ayaa waraysi gaar ah oo ay siisay BBC-da waxa ay ku sheegtay in Kenya marka loo eego doodeeda ku aadan badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ay tahay mid ay isku haleyn karto, halka Soomaaliya ay ku tilmaamtay inaysan marnaba haysan kiis ay isku haleyn karto oo ay guul ku gaari karto.
waxaana meesha ay ka saartay sheegashada ku aadan in Soomaaliya ay guul ka gaari karto kiiskaasi iyadoo u cuskatay in Soomaaliya markii ugu horeysay oo kiiskan ay gudbinaysay aysan dhinacyo kala marin isla markaana si toos ah ay u aaday ICJ taasi oo ay tilmaamtay in wax badan ay ka hadlayn karto. Monica Juma oo dhawaanahanba siyaabo kala duwan waraysiyo u siineysay warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda ayaa waxaa horay warbaahinta gudaha qaarkeed ay ugu sheegtay in Soomaaliya ay geed dheer iyo geed gaaban u fuleen sidii ay uga soo laaban lahayd maxkamadda ICJ isla markaana si gaar ah ay u wada hadli lahaayeen hase ahaatee Soomaaliya ay diiday. sidoo kale dawladda Kenya ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay ahayd mid siyaabo kala duwan tallaabooyin adag ugu soo rogaysa dawladda federaalka Soomaaliya tallaabooyinkaasna waxa ay u muuqdeen in cadaadis gaar ah lagu saarayay dawladda federaalka Soomaaliya. dad badan oo darsa arrimaha diblomaasiyadda waxa ay qabaan in Soomaaliya meelaha qaar ay qaadatay tallaabooyin wanaagsan isla markaana wax badan u qaban kara iyadoona dawladda Kenya marar badan ay ku eedeynayso Soomaaliya in ay taageero caalami ah helayso taasi oo ay sheegeen inay tahay inay dacwad ka gudbiyaan qaar ka mid ah dalalka ay u arkaan in Soomaaliya saaxiib dhow ay leeyihiin isla markaana in kiiskan ay ku guuleysato ay ka shaqeynayaan. sidoo kale warbaahinta dalkani Kenya waxa bilihii ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwa barnaamijyo gaar ah ka sameynaya xiisada u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya iyagoona intooda badan ciwaan uga dhigaya sheegashada Soomaaliya ee ku soo xadgudbaysa badda Kenya sida ay aaminsan yihiin. dhanka kale siyaasiyiinta ku takhasusay arrimaha badda ee Kenyaanka ayaa ku kala qaybsan in Kenya ay ku guuleysan karto kiiskani in kale. qaarkood ayaa aaminsan in Soomaaliya cadaadiska ay saartay Kenya aysan marnaba waxba u dhimin taasna ay keenayso in Soomaaliya ay isku kalsoon tahay halka kuwa kalena ay sheegeen in Soomaaliya ay doonayso in si toos ah ay uga soo xadgudubto Kenya taasi oo aan la aqbali karin. sidoo kale baraha bulshada ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu hadalhayo cida run ahaan ugu guuleysan karta kiiska ICJ yaala iyadoona dawladda federaalka Soomaaliya ay horay u sheegtay in badan ay tahay bad Soomaaliyeed oo aysan cidna qaadan karin. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. halkaad warkaasi duhurnimo kala socotaana dhageystayaal waa Radio Kulmiye. akhbaaraadka caalamka ayaa inoo soo socda saaxatay. war qoraal ah oo lagu daabacay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerar ka dhacay Afghanistan lagu dilay 2 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo booqasho ku tagay Afghanistan ayaa sheegay inay wadaan qorshihii ay ciidamadooda ugu bixi lahaayeen dalkaasi. Mark Pompeo waxa uu sheegay in wadahadallada ay kula jiraan Taliban uu meel wanaagsan marayo balse ay muddo 3 bilood gudahooda ay heshiis dhameystiran la geli doonaan xukuumadda Kabul kaasi oo ku aadan ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan. ciidamada isbahaysiga NATO ee jooga Afghanistan ayaa la kulmay dhiigbax ballaaran taasi oo sababtay in Mareykanku uu wadahadal la furo Taliban balse ilaa hadda dhinacyadu ma aysan saxiixin heshiis lagu cadeynayo waqtiga kama dambaysta ciidamada Mareykanka ka baxayaan Afghanistan. dalka Sacuudigana haweenay u dooda xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Samar Badawi ayaa ka soo muuqatay maxkamadda Sacuudiga kadib markii lagu eedeeyay falal argagixiso. Badawi ayaa ah gabar la dhalatay Raif Badawi oo wax ku qora baraha bulshada kaasi oo 10 sano oo xabsi ah ay ku xukuntay xukuumadda Riyadh sanadkii 2012 kadib markii lagu eedeeyay in uu dhaliilay madaxda boqortooyada. waa markii ugu horeysay oo Samar Badawi ay ka soo muuqato maxkamadda tan iyo 30kii July ee sanadkii 2018 oo xabsiga loo taxaabay. waxaa sidoo kale maxkamadda dambiyada Sacuudiga ka soo muuqday Nasima Al-Sadah oo u ololeysa xuquuqda aadanaha oo ka soo jeeda bariga Sacuudiga iyo Amal Al-Harbi. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee wadamada midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay maxkamadeynta haweenkan maadaama la soo taagay maxkamadda dambiyada oo alaba dawladda ay saarto shakhsiyaadka diidan siyaasadda dawladda. sharciga Sacuudiga ayaa dhigaya muwaadinkii lagu helo dambi argagixiso in uu mutaysanayo 20 sano oo xabsi ah. warkii duhurnimo dhageystayaal waad kala socoteen Radio Kulmiyana waa inaga inta.